Anta oo taariikhdu tahay 2 bisha 10 2019 warqad ka soo baxday maamulka degmada Buloburte ayaa waxaa gibi ahaanba xilkii looga qaaday gudoomiyaasha xaafadaha degmada Buloburte sidoo kale waxaa la magacaabay gudoomiyaal cusub warqada ka soo baxday maamulka degmada Buloburte ayaa sidaan u qorneed maamulka degmada Buloburte kadib markuu arkay cabasho ka timid shacabka degan xaafadaha degmada Buloburte kadib markuu u kurgalay cabashadooda isla markaana la tashiyo badan la sameeyay waxgaradka xaafadaha sidaas darteed waxaan garowsanay in isbedel lagu sameeyo maamulka xaafadaha degmada Buloburte mas'uuliyiinta xilkan loo magacaabay ayaa kala ah 1 Cabdisalaad Ismaan gudoomiyaha xaafadda October 2 Yuusuf Axmed Kulmiye gudoomiyaha xaafadda Bagabeeso 3 Liibaan Diiriye Cabdulle gudoomiyaha xaafadda Indhaceel 4 Bariise Ismaan Cali gudoomiyaha xaafadda Xaaji Boobe 5 Cilmi Cabdulle Sibriye gudoomiyaha xaafadda Wadajir 6 Cumar Cabdicasiis Xasan gudoomiyaha xaafadda Madiina 7 Axmed Cali Daawud gudoomiyaha xaafadda Hanti Wadaag